halkan waxaa ku shiray waa cayr muurashade xawaale sooma ya welina nimankii waa joogaan laakiin inaan galabta ay noqoto galabta noogu dambaysan hadal isugu nimaado nimankii weli aan leenahay aan iska kicinno inay galabta noogu dambayso waxaan naga maqan saan rajaynayo duduble oo asaguna ay ahayd galabta inay halkan joogaan halkan waa deegaanka Waradhuumale ee gobolka Hiiraan oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkan waxaa maanta soo gaaray mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale dawlad goboleedka Hirshabeelle mas'uuliyiintani oo isugu jira wasiirro xildhibaano iyo saraakiil ciidan iyo sidoo kale gudoomiyayaal ayaa waxay halkan uga dhawaaqeen isbahaysi ka dhan ah kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab isbahaysigan waxaa samaystay beelo ka soo kala jeeda gobolada Galgaduud iyo Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin iyo sidoo kale xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar ayaa halkan kula hadlay warbaahinta iyagoo ku dhawaaqay isbahaysigan halkan waxaa la isugu yimid shirka aan u ballansanayn haddaan qaldanayn waxaa la rabaa galabta halkan waxa go'aan ma noo tahay inaan nimankaa wax iska nidhaahdo yaa halkan waxaa ku shiray waa cayr muurashade xawaale sooma yaa saddex reeran ka koobana sooma waxaana kula dagaalamaynaa deegaankeena inaan ka kacsano saddexda beelood ee xawaale iyo muurashade iyo cayr ee galabta halkan isugu yimid waxaan naga maqan saan rajaynayo duduble oo asaguna ay ahayd galabta inay halkan joogaan laakiin qaybteeda iyo kulankeeda ay noqon doontaa iyo markeeda haddii ilaahay yiraahdo waxaan halkan u nimid go'aanna ku gaarnay inaan iska kaashanno isku garabsanno la dagaalanka cadowga khawaarijta ee Al-Shabaab waxaan isku dhaarsannay oon ballan iyo ahdi ku galnay inaan la dagaalanno meeshan ku aragnan aan ku dilno soo sidaas maahan waxaan rabaa xoogaa arrimo yaryar oo waxaa jiray dadka qaar ay dadka danaha gaarka ah isweydiiyaan tusaale cayrka iyo xawaalaha iyo kaleeto waxaa lagu leeyahay annaga dhul nagama maqna maxaan dagaalna loo gelinayaa haddaanan shabaabkan xunoo meesha taagan iska wareejin dhulka aan joogno nabad ku joogi mayno tihiin galabta waxaa meeshaan isugu nimiday waa inta cali ka hadlay ayaamahaana waxaa noo socda hadalladaas in maar saddexdan beelood wajahada ku aadan ay ka wada howlgalaan galabtana waa isugu nimiday wajahadaha dagaalku ka socda waa badan yihiin dhinacaas mudug waa ka socdaa dhinacaas dhuusamareeb iyana waa ka socdaa wejigaana waa ka bilaabanaa haddii alla yidhaahdo ilaa iyo xeebta waa ka socon doonyaa insha allahu waana marka ugu dambaysay wax badanaan isu nimiday oon hadalnay oon wax isu sheegnay welina nimankii waa joogaan laakiin inaan galabta ay noqoto galabta noogu dambaysan hadal isugu nimaado nimankii weli aan leenahay aan iska kicinno inay galabta noogu dambayso oo aan wixii ku xiga aan isugu nimaado waa iska kicinna nimankii wixii kaloo talaa iyo wixii kaloo horumar ah aan ka hadlayna haddii ilaahay idmo ballamihii hore loo soo qaaday meesha aan maanta isugu nimid oo gogashu ay noo taallay waa Waradhuumale waa go'aankii ugu dambeeyey waa ballankii ugu dambeeyey oo la isla qaatay insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu go'aankaas uu fuli doono deegaankan Waradhuumale ee gobolka Hiiraan oo hoostaga degmada Maxaas waxaa 15 sano ka hor khawaarijta Al-Shabaab ka xoreeyay ciidamadii Ahlus Sunnah wal Jamaaca dagaalo culus ayaa halkan ka dhacay muddadaas 15 sano ka badan ma aysan imaanin kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab halkan waxa ka bilaabanaysa furin cusub oo ku cusub khawaarijta Al-Shabaab waa furin ku aadan deegaanka Wabxa oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan deegaankaasi khawaarijta Al-Shabaab ayaa weli ku dhuumaaleysata waxaana la doonayaa in maalmaha soo socda khawaarijta laga xoreeyo sida ay noo sheegeen saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku sugan jiidan cusub Diiwaan Nuur Rogcad warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Waradhuumale Hiiraan